deegaanada koonfur galbeed xilligan waxaa ka jira abaaro aad u daran oo saameyntooda ay gaartay dadka iyo dunyada balse xilligan magaalada Baydhabo waxaa u sii dheer cudurka shuban biyoodka waxaana isbitaalada ugu waaweyn ee Baydhabo lagula tacaalaya boqolaal bukaano ah oo uu soo ritay cudurka shuban biyoodka maanta shirkadda adeega korontada ee magaalada Baydhabo ee Beko ayaa isbitaalada ugu waaweyn ee magaalada gaarsiiyay deeq isugu jirta dawooyin iyo waliba daramo lagu seexiyo bukaanada waxaana isbitaalada kamid ah isbitaalka guud ee gobolka Bay iyo waliba isbitaalka Bayhaw oo isaguna kamid ah xarumaha caafimaadka magaalada Baydhabo kuwa ugu waaweyn Maxamed Sheekh Aadan Bilow waa agaasimaha shirkadda korontada Beko wuxuu ka hadlayaa deeqda maanta ay gaarsiiyeen isbitaalada Bayhaw magaalada ku baxsanay soo hodhay oo sheegnay isbitaalka ama hadeersinayha muddaha ku hor ee uu qoynay assessment oo soo bini baahida isbitaalka markaas hanka hadda fiiswan hayna yani hadeersini isbitaalka hadeersiyana Bayhaw boqol iyo konton katiifadood iyo tumi ila makartoon oo falabada ah iyo tumi ila yani joodara oo waxaani adeeg hayna marka insha Allah mayna shirkado kale oo binaanka Baydhabo halku lahaaday mis Baydhabo halka lahaaday maynka baaqana insha Allah iyo noqoti oo shirkadda adeega korontada magaalada Baydhabo hadaysadaan hatta kulli insha Allah mas'uuliyiintii oo ay ku wareejiyay isbitaalka Bayhaw shirkado maynka baaqay hadii iyo la aragahayaan mas'uuliyadana dhiigahayaan magaalada Baydhabo halka lahaaday mis magaalada Baydhabo meel ku baxsan halka lahaaday intiyo يعني دور شغل ولا ينك ساي social responsibility يعني حكو بحال maamulada isbitaalada maanta shirkadda Beko gargaarka gaarsiisay ayaa ka mahadnaqay sida ay ula garteen in la qaybsado badbaadinta dadka dhiban kay wala seen ka baahnaay waa nin kasto muslim ah dhibaato oo maalinta habooqada maarag walay oo maaragtay karaansha dhiibi jiray oo ka rajaanay yan inshaan tahay oo baahay badan leenkahay dadku ku walaan banaanada jeefaan aragtan kartoomo ka jeefaan markaysan ka daqataan ogaateen aragtaan kormeer ku hayte yaba isgarateen in maarnay kaalmayta adeegaas runtii eedeedan maasatay sida mar oo meelaha ilka oo meelaha agab oo meesha runtii aan kama hadnagay may dheerays agaasimka oo shirkadda Sheekh Bilow iyo qof kastoo dhib baaday in contribution isbitaalka hadeeda shirkadda adeega korontada ee Beko oo sidoo kale biyo dhaamin u sameysay barakacayaasha ku nool magaalada Baydhabo ayaa qayb ka noqotay xarumaha ganacsiga ee ka qayb qaatay gargaarka gurmadka abaaraha iyo kuwa cudurka uu haleelay Cabdinaasir Musharraf telefishinka iyo raadiyaha Puntland magaalada Baydhabo.